Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada channelka Alnaqaaya Media oo aad ugu barateen inuu idiin soo gudbiyo sheekooyin. Caawa waxaan idiin soo gudbinayaa sheeko kale, balse waxaan idinka raali gelinayaa labadan habeen oo aan waxba soo dhigin mashquul aawiisa. Marka caawa ayaan kusoo noqday si aan sheeko idinkugu soo gudbiyo. Sheekadani waxay ku saabsan tahay nin iyo xaaskiisa oo nolol fiican ku noolaa. Ninka wuxuu ahaa nin lacag leh oo shirkado badan leh oo hanti leh. Nolol wanaagsan ayay ku noolaayeen. Xaaska iyo ninka iyo cunug uu dhalay iyo naag shaqaale ah oo u joogtay. Noloshii farxadda lahaa ay ku wada noolaayeen in muddo ah kadib waxaa xanuunsaday ninkii oo hantida lahaa. Isbitaal ayaa la geeyey. Isbitaalkii cudur halis ah baa lagu soo sheegay. Waxaa la yiri adiga waa inaad iska nasataa oo gurigaaga aad joogtaa oo sariirtaada aad saarnaataa. Ninkii guriga ayaa lagu soo wareejiyey. Gurigii isaga oo jooga ayuu tacbaan sii noqday. Sariir buu iska saarnaa, sariir buu ku aruuray. Balse naagtii uu qabay maysan daryeeli jirin oo way dayacday. Oo ninka abalba hantidiisa ayay ku fiirsanaysay. Ma ogiye jecel iyo qalbi nadiif ah umaysan hayn. Cunugina sidoo kaleeto oo caasi buu ahaaba odayga maba kala jecleenbo inuu jiran yahay inuu fiyow yahay oo kaliya waxay ka rabeen hantidaas. Ninkii waxba uu tacbaano uu sariirta saarnaado muddo 6 sano ah, balse ninka daryeel wuxuu ka heli jiray naagtii shaqaalaha oo guriga joogto. Naagtii uu qabay waxaa dhacday in niman kaleeto ay guriga ay keensato oo ay meesha ku shukaansato aysan fiirininbo ninkeeda. Ninkii waxba uu sariirta uu saarnaa uu tahay uu xanuunkiisa iska hayay oo uu iska dhibaataysnaa. Markuu u yeero naagtiisa iyo ama cunugiisa uu u qeeliyo sariirta soo saarno oo wax u baahnaado, qof u tagay ma laha. Naagtii cunugina meeshaan wax iskaga dheelayaan. Iskaaka wax la yiraahdo ama jaas bahasha la dheelo. Jaaska bahasho waxa waaye adi jar oo kaleeto oo boqor iyo boqorada oo kale wax saas oo kale loo dheelo ee meeshaan ku dheelayaan. Uu u yeeraa dhig jalaq loo seenay. Habarta waxay leedahay aabahay qeyleyso u tag. Cunugina wuxuu leeyahay aduu ninkaaga u tagno. Raxa u taga male iga dhafo kale leeyahay. Dheeshooda iska wadanay. Naagta shaqaalaha maqlayso, naagta u tagayso oo odayga daryeelayso oo wuxuu raba siinayso oo caafimaadkiisa mar walba ka taxadirayso oo daryeel wanaagsan u hayso. Ninkii in muddo markii la joogay tiisa soo gashay oo wuu dhintay. Markuu dhintay naagtii uu qabay jixinjix iyo wax yarba maba lahabo ooynaysay waxaas. Naagta shaqaalaha ayaa oohin iska gashay oo ninkii dhintay ka naxsan. Tan maba kala jeclaba. Ayadii cunugeeda waxay is wareysanayaan. Aabuu dhintay talo lacag meeqa nooga tagay oo kaleeto. Cunugu wuxuu leeyahay wallaahi kuley ba aqaan waxay tahay lacag wuxuu nooga tagay kuley adiga un baa leh. Labadeen leen naga dhaxaysaa. Ayagoo saas u faraxsan lacagta ku tashanaya. Maalmaha kamid waxaa albaabka soo qaraacay odayga abukaatihiisa. Albaabkii ka furan oo soo dhawaa ninkii waa la soo dhaweeyay meesha soo fadhiistay. Wuxuu dhahay odayga dhimanay ninkaaga ahaa ayaa dardaarankiisa inaa idin aqriyo rabaa ee bal marka halkan hala soo fadhiisto. Boorsidiisa wuxuu kala soo baxay waraaq. Waraaqdii furay markaasoo aqris uu ku bilaabay. Wuxuu dhahay horta labadiina Lucy naagta la dhahay Lucy adiga iyo cunugan Andre hantidan xabad kuma leedin. Oo maalinta dhan say adiga u hadlaysaa. Maya odayga sidoo dardaaranku u dhigo waraaqdiisa waa tana. Labadiina hantida wax kuma leedin. Olivia oo ah naagta shaqaalaha ayaa hantideeda iska leh. Oo wixii hanti ah oo aan leeyahay ayada baa lagu wareejinayaa oo dardaarankiisa ku qoray. Naagtii madaxay qabsatay. Abukaatay waxay leedahay warnay adiga waa qaldan tahay. Wax si fiican u fiir iska hubi. Ayadoo hadalkii la wada waxa soo gashay naagta shaqaalaha qolka oo markii loo yeeray imaatay. Naagtii xaaska dhaxdo haye ninkayga sababta uu kugu siinayo hantida oo asiga lahaa maxay tahay. Ma shukaansi idinka dhexeeyo iga qarsan jirteen. Say hantidan ku heshay. Naagtu way isku naxad shaqaalaheed.
ninkii wax ku dhahday avocado bal inaa wax ka qaldan yihiin laga yaabaaye boorsadaada baari waraaqaha si fiican waraaqda uga dhex raadi. Markaasuu wuxuu dhahay subal boorsada fiirnaa boorsada haddana waraaq kale ka soo bixiyey oo nood yar ku qornaa, hadal yar ku qornaa. Wuxuu dhahay waraaqdii aqri aniga xaaskayga iyo cunugayga hantideeda waxba kuma laha, sababtoo 6 sano baa sariirta saarnaa oo aan jirnaa qolkaas ku jiray. 6 sano hal mar baan arkay ayagoo agteeda marayo, ayagoo isdhahay ninkii bal fiiriye naf ma ku jirta ma neefsanaya inaad dhinta ayaaba ka jeclaaya inuu dhahay. Halkaas mar baan arkay, laakiin qofkii iga taxadiray oo mar walba iga warhay Lucia bay ahayd. Lucia ayaa i daryeeli jirtay. Lucia waxaan kuu rajaynayaa nolol fiican inaad ku noolaato, hantida aad leeyahayna adiga unba u madax bannaan, qof kaloo kula leh ma jirto, waa inaad adiga qaadataa. Xaaskayga iyo cunugaygana waxaa u sheegayaa inaan u ogolahay kaliya in shirkadaha aan leeyahay oo Lucia ay madax ka noqon doonto, boos idiin noqon doonto, inaad ka shaqaysaan oo saacadii aad ku shaqaysaan $10 haddii dan idinkugu jirto. Haddii kaletana magaalada inaad iska dhicisaan. Ninkii markuu aqri naagta madaxay gacanta saaratay, waxay ku hadashay kasi weysay. Markaasay waxay dhahday inuu mar hore dhinto ahaydba duubsaanba oo ahaaba inuu halaan soo gaarma mar hore inuu iska dhintaa fiicnaa lahayd. Naagtii Lucia la farxad ay la ooysay. Ninkii abukaatihii xabadka gelisoo mahadsanid u mahad celisay. Naagtii Lucia ayaa hantidii ku wareegtay. Cunugii iyo naagtii ninka ka dhintayna wax shilin ah maysan helin. Gurigii ay sida uga baxeen. Marka meeshaas waxaa noogu soo baxayso in wanaaga uu mar walba fiican yahay. Ninkaaga haddaa kula joogtid lacag leh waa laga fiican yahay. Ka tag runta u sheeg haddaadan rabin. Booskaas waxaa soo galaya qof qalbi fiican leh oo jecelna u hayn kara ninkaas oo daacad u ah. Adiga haddaad khiyaano kula joogtid ma fiicna. Khiyaanadaada kala tag, ka fogaaw, ha lu gooynin, hungurna yuusan ku galin. Adduunyada waxaa waa loo biri waa laga tagaa waxaan. Ninkaaga daacad u ahaaw ama ka tag oo waxba ha ag joogin. Sheekadiina meeshaas ayay noogu eg tahay.